kulankaani oo mid ay iskugu yimaado odayaasha waxgaradka mid ka mid ah beelihii dhawaan darirtu ku dhaxmartay deegaanka ka xandhaale deegaano hoos yimaada ayaa waxay kaga hadlayeen arrimo dhowr oo ku saabsan colaadda deegaankaasi ka dhacday qaar ka mid odayaasha waxgaradka kulankaani qabtay waxa ay ka hadleen cid ay u arkaan inay dhammayn karto colaadda ka dhacday deegaanada higla tiriye ee deeq leh oo u dhexeeya deegaanada ka xandhaale iyo sidoo kale galinsoor iyo odayaasha kulankaani qabtay waxay ka hadleen dhexdhexaadnimada ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedka galmudug ee ku sugnaa cadaadad gaalkacyo iyo galinsoor kuwaasi oo sheegeen inaysan dhexdhexaad ka noqon karin colaadii ka dhacday deegaanada deeq leh iyo sidoo kale higla tiriye oo u dhexeeya ka xandhaale iyo sidoo kale galinsoor odayaasha kulankaani qabtay dhinaca kale waxay ka hadleen wufuud ka socota dawladda federaalka ee Soomaaliya oo loo soo diray dhexdhexaadinta beelaha halkaasi dawaan dhirtu ku dhaxmartay iyo hadafkooda waxaanu maraynaa heer aanu isku baaba'nay waxaan ogeysiinaynaa caalamka oo ka codsanaynaa in arrintayada la eego qodobkaas adduunweynahan u jeedinaynaa aniga ra'yigayga iyo taladayda haddii aan ka soo laabto waxa laale wixii dhexdhexaadinaya oo waxa aan isku hayno markii aan isku nimaadno la oranayo maxay yihiin markaas yaanu tilmaamaynaa waxaan isku hayno 40 sano bini aadankaas aan isugu go'ay waxaanu cadaynaynaa in la ku soo duulay u badnayd 40 sano haddii loo leexdo dhanka islaamnimo anagu ma diidan inaan bini aadanka nabadgelina ma diidan balse waxaan adduunka iyo islaamnimadaba ka codsanaynaa nimankaas inay 40 sano saacad iyo saleebaan weerar nagu hayaan markii u dambeysay oo hadda waxaas garab siiyay oo dhaliisheeda aanu muujinaynaa ciidamada leeyahay dawladda Soomaaliya samaysatay oo galmudug ku magacaaban inay nagu soo duuleen shalay iyo maalintii ka horeysay federaalka ciidamadu samaystay inay nagu soo duuleen oo beelahaas noogu darmadeen yaanu cadaynaynaa markii la iska hor yimaadana yaa tilmaamaha cadaynaya aan soo dhigaynaa anigu meeshaan dagaaladan ka jira galinsoor iyo dhabad iyo deegaanka Soomaaliya oo xabadu ka socotay 47 sano 37 sano haddana ay socoto dhibkaas baa iskugu keenay iyo xaaladaas ayadoo dhibkaasi jiro baa waxaa lagu xalliyaa haddii dhib dhacoyaa gardaran dhibaatada socotana waxay ahayd dalka Soomaaliya oo Soomaalidu wadan ay wada joogtay ahaa markii dagaaladu dhaceen dalkii Soomaaliya oo beeshaani degi jirtay oo qaybta ay u lahayd waxa ka saaray beesha Habargidir baa ka saaray ayadoo mar UAC kaashanaysa mar maxaakim kaashanaysa mar galmudug iyo federaal kaashanaysa dagaalka wuxuu socdayba hadduu soo gaaray markii dalkii Soomaaliya laga baxay dagaalka ka socda Ethiopia sida ka xandhaale tacdeer firinti foore balacad inta oo Ethiopia dagaalada ka socda anagu markaan nahay beesha Maxamed Amaan reer oo shacabka lagu godwaaday Ethiopia nooma taalo waxay u taalaa dawladda Ethiopia oo shacabkeeda la weeraray ayadana lagu laayay qalabkeedii iyo ciidankeedina lagu qabsaday bay u taalaa anagu markaan nahay beesha wagardhaceed ee dalka Soomaaliya degan lagana saaray waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka iyo madaxda hadda la soo diray in dagaalkaas dhacay oo shacabka ku dhacay Ethiopia degan ay wadeen fiqi iyo dadawaa oo nimanka xildhibaanada ah ay iyo siyaasiyiin kale ay ka dambeeyaan waxaan iskugu nimid inaanan aqbalayn ciidamada weeraray dadka shacabka ma kasta awal deegaankii Soomaaliya ka saaray sida galinsoor ay lahaayeen tuula qorax cilmuudaan deeqla kabawar tuula sarmaan miracawleed inta ka saaray ka bacdina yiri dalkii Soomaaliya waa ka saaray kan Ethiopia aan ku weeraro inaanan aqbalayn ciidamada federaalka iyo galmudug oo dagaalka galay inay dhexdhexaad ka noqdaan ma aqbalayno markaan ay beesha wagardhaceed mana yeeli doono waxaana la yiri haddii laba qolo diridho qolada gardaran buu yiri ilaahay ha la maslaxada qolada gardaran ha la wada dagaalo
marka annagu waxaan u sheegaynaa markaan